caawa halkaas ku nimid annagoo dhalinyaro badana inaan iska caawisiino gaalka ayaan joognaa ma sheekan qaani siinaya si kadib aan teleefanada u galno asxaabta waa idinla soconaa maasha allah waa iska sheekaysanaynaa iska caweynaynaa life kuma fiirinayo moogta markaa shakariya idinka idiin sheekeeya dadkaas waa tuulay ka dhacday waa kor joogto tuulay ka dhacday sheekada waa garta cawo iska shaah iyo sheekan rabeen uga sheekeeyo laakiin hadda maadaama caawa dad badan baa halkan naga daawanaya waa horumar isba ka dhigaysa waa kasii horumarinaya gabar baa waxay aragtaa iyadoo tuulo joogtay waxay aragtaa maalin walba gabar tuulada joogto dhacda laga dhaqay arifon ka saara liyo xama maqlan ana tixgelin wuxuu ku hadlayaa hadda wadaad arifon ka war mana maqashaan telefoonka ka xumaysan ka soo qoray arifon ka saara waa kii horta tooshul wataaba reer wallahi sheekada inaga khasaaray ka baqaya war mana maqashaan aad iyo aad bay dheeyaan aad yahay comment kuma socdeen hal comment baa waxaan noqon lahaa idima maqalno idima maqalno jawiga jawiga laga dareemaa wixii isla qoon haysta hal fiirsadeen dhageysta sheekada ay ka dhaxgelin gabadhii waxay aragtaa gabar maalin walba tuulada joogto dhacda waa laga dhax qayliyaa tuulada u dhow wadaad jooga loo yeeraa wuu ka saaraa maalinta dambe haddana waxay aragtay galabkii haddana mid kaloo dhacaysa war wadaadki shiikhi raadiyooga heblaa dhacday wadaadkii baa la doonaa waa la keenaa haye gabadhi waxay tiri adiga maxaa lagaga dhaxayn maayo waa yaabanta ana naag iska foolxumo marka hore foolxumo u dhalatay digiran been galabta dambe wadaadkii gabar baa laga dhaxqayliyey sida caadada ahayd wadaadkii baa la keenay qur-aan buu saara waa ku dhibtooda waa ka saari waayey midaadoo kale ama ku jiraan naftaa ka dhacday gabadhii wadaadkii xilli dambe markeed habeenkii ka baxa waa iska tegay wadaadkii tuuladii kale u carraabay hadhowdii baa gabadhii saaxiibtaa waxay istirini oo adigaba istuur maalin walba maheblaa wadaad loogu yeeriy adiga maxaa tahay bad bay isiisiis moogeedii go-aan bay qaadatay geesinimada waa istuurta gabarna dhaataa qaylisa walaashay baa laga qayliyey wixii ka qaylin jiray gabdhaha kale ka dhex qayliyey waa la isku buuqay dumarka sawaxan saa la yidhi wareedha shiikha hadduu tooyo mid wax ka saaraya shiikhi haddana ma dooni karnay lababa aanka joogta tuulada qur-aanna aan aqoon wareedha marka ay adigu gabadha wax kusii akhriya haddii la rabo markii ka bixi waayo wuxuu shiikhaa la doonay lagumana jira de labas labadii baa u yimid laba adiga anoo kale afarta faryaray ka xirteen anu ilaa tabad baa qaanaa afarta faryaray ka xirteen gabadhii hortay ka xirteen bay xabaar dul aamusnaayeen oo dul fadhiisteen waxay u qabtaa inay qur-aan akrinayaan sababta laba gabdhood iyo laba wiil baa igu jira saaliye oo gabdhuhu maxay yihiin maxay kugu galeen wiilasha garanay sababta quruxdeeday ka yaabeen oo way ileeyeen hadda hal iligna kuma jira gabadha xumada inay sii jeedo inay soo jeedo lama kala garanayo waa gartaa markaasa dheer oo qur-aanba kugubaan akrin ayaa ku yidhi gabadha maxaa kugu jira inta ka fureen hadda kahor nin baa soo goostay wuxuu hela jaldi buu hela jaldigii saaxiibka markuu helay ninkaan jabhad buu kasoo goostay reer buu u yimid reerkii uu dareemaa inay reer jaahilina yihiin aan diin aqoon reerka waxa u joogta gabar quruxdeeda ka naxaysa baryaanka jobra iyo mamto iyo defiya baarti waa ka naxaysaa munakey ala waa iloo salaam munakey iyo timee ka shaqsi heesta qaadish iimaan qof shidan oo kala oo shidan dheer baahid laakiin ma taqaanaa wuxuu sameeyay dhageyso sheekada ma dhageysanaysaa dad baa u sheekeynaya nimankii wuxuu dareemaa ninkii inay diin amarka yihiin xataa xaafadda lagama tukado dad waxa weye nooc kale wuxuu sameeyey waxay dhahaan shiikh baa ahay kuy ninka tumaha ku baxsanaayeen afro ahaa alaabta waariko oo kale tumaha ku baxsanaay laakiin asar rafaad baa ka keenay nin jabhad ka soo goostay saaxiibka wuxuu sameeyey haraggiina buug baa ugu jira qaamuus ah harag kitaab uu meel kale waariko haragga lagu ridan jiray kitaabada ninku waa aaminay waxa ninka waa shiikh caadi u ogyahay qaabkiisa waa imaansanana waxa la niyo shiikhow gabadha waxa xaafadda waxa noo joogta gabar quruxdeeda aad u yaabayso joogtee laakiin gabadha cilad kale male way suuxdaa say u joogtaa mar dhacaysaaba meesha u joogta haa bib waxay shiikh wuxuu yidhi anaa ina yaqaan waa daaweynaya shiikhii gabadhuu soo dur istaagay waa shiikhna ma waa xataa weligiis ma tukan wuxuu sameeyey gabadhuu soo dur istaagaa madaxu gacmaha saara intuu ka fogaado buu haddana shaataa
لا دين الأشهاد كيغانا لا إله إلا الله محمد سأل وروح لوش قبل أبيض هويديو بدنا نشوف وين بكتير أنتوا ما عشان شنو الله ورد بقبل أن كتير ورد الله أصلا ما يستوي ورد ما مدة قال كل أنتوا وحسواها ساعيكم سويتها سدها ورد ها ورد ساعيك علي ما كسارك أنا يكون هان حاول كسار واي ها ورد نفسي أنا ساري لكن هل مد ورد وأخلاقهم ويحرموا الله أفر نف أنا لبها لي كريو لبنا أيضا هالوشيلو أقل قيمته وين ما الكريسة أقل وين ما الكريسة صاحبها وحسميين أقل كبار سهيل بكنو عنا نقاطها سهيل بكنو عنا قبل أن تقول قليي بوجه هلا حرو لو أقول لا بقى مضال حرو أقل صومالي كل احتداء هيك شو أنا وحي بناك صف أنتوا هيك أصبح حكويل شنك قبل أكو ترى وحرم كوال ديا وأخلاق حمية هذا أخلاق حمى كم قشان واحد ترى كل يوم أترى ده سدين هيه لما الله ينبي الباقي قالين سونيك أنتوا لك يسكب حجوا وادك قبضة شق الله هو ينك وحاسوق هاي باي ينك وهاي فولا سي أترى أساكن العيوبين ورنيك إيجا سو قاعد نحكي وقبل عيونا ياسي وافوريون أترى والله وفهم كده أبي ذكرن ورنيك سو قاعد نيك نف هذا أفر جيم شن جيم مركو مريه أيضا الله هاي سيريس والله سيد دعد لا ونيك إيجا سو قاعد ونيك وقف سنة يا ونيك ساس وقصة مانيا والشيخ ما هو بين أترى والله أساكن العيوب ويرضى بأخلاق حمد جنب يري يا لوبحن أترى كسر markuu wixii soo dhameystay waa ninka labada neef ku maqnaayeen oo qoftii dee abqaadka soo jafay oo banaanka soo baxa waxa ni sheegay suma jeedin anoo sheekh ahaa waxa iga nabsanayay bilaayada wuxuu ku hadlayay al istaghfar sheekhu ka raali noqo subhanallah islaamiy subhanallah